hawlgalo nooceeda xageesa wararka ayaa waxay sheegayeen deegaano ku yaala xeebaha gobolkani bari aan ciidamo ka tirsan Puntland ay howlgallo ka wadaan arrintaas waa arrin beena raadna male wax ka jiraan ma jiraan aniga idin sheegayo cidii qortay beentay qortay waana kula xisaabtamaynaa wax ka jiraan ma jiraan arrintaas waa been aan sal iyo raatoona lahayn wax ciidamo ah oo Puntland oo loo diray halkaas ma jiraan dhulkaas waa nabad wax ka jiraan ma jiraan niman baa wax sheegay war sheegay idaacad intay qabsadeen sidaa taleefon ugu sheegay Puntlandna maaragtay dee wax kuma duuli karto waxaan maaragtay muxuu ahaa lahayn macno samaynay iyo qof meel ka hadlaya raadiya waayahay wasiireen hadalkaaga markaad tixraac u sameeyay waxaad tiri Puntland kuma duuli karayso niman raadi ka hadla iyo waxaan macno samaynayn maxaad ula jeedaa jeedada waa garanaysaa wax loola jeedo nin raadi intuutigay waxaasaan ahay sideedaan ahay yiri iyo waxaasaan ahay yiri magarad oo waxba ka jirin doonayo maaragtay inuu isaga propaganda samaysto waxba maaragtay in loo jawaabo ma mudna maaragtay kaasa ka dhawaajiso waa kee ayaana badan laysma hormaro warka waa taranka dhawahi jira waa طبعا كان إذاعة وحيد وحنا وهري وها وقرب هذه جواب سبارة وياي وزير كنت وصل دعنو وسركال كتير سناجر Puntland ولقوا مقع فارح دو حجوجي الشقي إن دجاجنا كوي الله حبها Puntland أي كذا واقعين مامول ليرادو راس عصير أريمها كم نجا Puntland واتهاي أريمها سمعت كلا صوتان الربا وهذا باركي هذه كلام يعني أنا عارف كل شيء يعني وكفر هذه كان له وحشتي وماركي بربوغاندي وقدر اللي ماركي هلو بقلو وحي معنا سميني ثم جبته ومدى دقن وانا Puntland واحد عرسرين اللي هذا كمان جيران ماشي دول كاسوا دول باركي أنا دقن كيجي دك يجي بجوارياشي وقرصي يمكن دقني بمدى جوتة marka nin intuu yimi maaragtay banaanka yimi isagu propaganda ku saabsanayo rabta inuu wax ku kacsado isagu siyaasad iyo dan iyo wuxuu kale yahay propaganda loo sameeyo weeye ninkaas ma aha qof maaragtay wax oo macnaha hadda sameynaya ma lagama duuli karo lagama ficil qaadan karo wax noocaas oo kale waxa lagu dhaliilaa dawladdu inay ka gaabiso wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha dhanka ammaanka ee deegaanadaasi taasada ma ku muuqanaysaa markaan ka nimaano arrimahaas Puntland waxa weeye Soomaaliya markay burburtay waa maaragtay maamul la leeyahay dadka deegaanina waxa weeye waa isog yihiin dhulka maaragtay wixii baahiya oo maaragtay awooda ay Puntland qaban karto waa gaarsiisaa waana jirtaa maaragtay dhulkaas maaragtay xeebaha runtii maaragtay iska jiraan dhibaatooyinka xagga infrastructure-ka iyo maaragtay jidadka iyo dhibaatooyin ka jira kaasoo dawladda ku xiran tahay waa garan karaa arrimo dhaqaale waxaana weeye barnaamijyo lagu jiro horumarineed oo maaragtay markii dhaqaale loo helo in wax laga qabto wax waa laga sameeyey oo hadda wado dhinacaas xaggaas muxuu ahaa ka socotay waa jirtay muxuu ahaa ilaa caluula oo ilaa baargaan halkaas laga sameynayo marka arrimaha dee wixii markii awooddu ay muxuu ku saamaxdo dhaqaale ayaa wax badan la qaban karaa dhulkoo dhan maaragtay wax lagama qaban karo intaa maaragtay hadda muxuu ahaa farasaradir ka jiro oo laamigu maro ayaa maaragtay moodaa maaragtay xilay magaalooyinka xoogaa maaragtay inta laysu maro ah ilaa boosaaso ilaa gaalkacyo intaa laysu dego ilaa taanood iyo intaa ku saabsan inta kalena waxa weeye dhulka waa wadooyinkii iyo dhibaatooyinkii way ka jiraan maaragtay wixii la qaban karana waa loo qabtaa marka dee wixii maaragtay dee awooddu ay keeni weyda dhaqaalada waa wax lagu tala jiro in la